السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لدي أصحابتي يا أحبابتي ذا خالقة دمانتي وإن السلام يا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحنا وأصبح الملك لله وحده إلهي بواقع إنو بريسيي سوى عن أو نحسن إنو بريسيي ملكي حمد دمانتي ربي أيا أسكال سبحانه وتعالى walaalkayga khaaliga ah waxaan jeclaysay inaan ku xasuusiyo xadiid maskaxdayda iminka ku soo dhacay xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay man asbaxa minkum aaminan fi sirbihi mucaafa fi jasadihi وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا وحذافيرها ninki idin kamida oo waaga uu u baryo asoo ammaan u qaba naftiisa oo aanan ka cabsi qabin in wax la yeeleeyo dhibaatooyin ayna ku furnayn iyo shidooyin markaas soo hujuumayo naftiisa qatar gelinaya mucaafan fi jasadihi jirkiisana uu caafimaad u qabo indhihiisa iyo dhagahiisa iyo qalbigiisa iyo arwaxiisa ay isku taalo oo aanan markaa ahayn nin sariir saaran oo bukan aan ahayn nin jirkiisu kala go'an yaho mashaakilaadii dhaawacyo ku oolin wacindahu qawta yawmi maalinkaa wuxuu cuni lahaana meel ku og oo rabbi subxaanahu watacaala u yasiray adduunyada oo dhan baa loo soo kulmiyey buu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyo wax allaale wixii ku jirayba walaalkayow haddii waaga uu ku baryo saddexdaa arrimood adigoo ku sugan waxaan jeclahay inaan naftayda iyo naftaada xasuusiyo wixii intaa kasii ziyaado ah waa ziyaado aanan u baahnayn mashaakilaad fara badan in loo maro diinta ilaahay looga fogaado iimaankaagii loo layaco ummadda wax loo dhibaateeyo allah hadduu subxaanahu watacaala waaga ku barisiiyey adigoo ku sifoobay saddexdan calaamadood oo xadiidku sheegayo walaalkayow qul alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiina dheh ilaahay subxaanahu watacaala ku shukri walaalkayow ilaahay subxaanahu watacaala ku mahadi walaalkayow haddii xadiidkani ama kiliibkani uu ku soo gaaray adigoo dhagahaagu ay bad qabaan oo aad maqli karta kiliibkayga indhahaagu ay bad qabaan oo aad arki karta kiliibkayga qalbigaagu uu bad qabo aad fahmi karaysa qowlka aan ku hadlayo walaalkayow allaan kugu dhaarshiyo asxaabtaada kale iyo walaaladaada kale xasuusi nicamka allah subxaanahu watacaala uu siiyey walaaladaa xasuusi saan kuu soo xasuusiyey nicamka allah subxaanahu watacaala uu siiyey si ajirkay aniga adiga aan isaga mid u noqono walaalkayo waxaad ogaataa silcada ama badeecada markii la qasaaro gadaayo ama lafaheeda la gadaayo ama faa'iido badan laga raadiyo isku juhdi looma maro isku dadaal looma maro wax allaale wixii ka baxsan saddexdan sifood haddii ay tahay adduunyo aad raadinayso rabbi waa ku siinaya waana kuu sahlaya laakiin yayna kula dhaafin xadadkii rabbi kuugu talagalay subxaanahu watacaala imaa inaad diintaada ku layacdo salaadahaaga ku dhaafto imaa inaad dikriga ilaahay ku layacdo imaa inaad walaalada kale asxaabtaada ku jaa'ifayso adigoo raadinaya ziyaadada intaa ka baxsan walaalkayow allah insha allahu tacaala ka codsanaya ani adiga inuu naga dhigo dad waagu si nabada ugu baryo jirkooda oo caafimaad qaba allah subxaanahu watacaala irsaaqadooda uu meel u saaray maalinka naftoodana aamin u qaba allah subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ka rajaynaya walaalkayow haddaan ku xasuusiyey nicamka allah ee saaka waaga uu kugu baryay walaaladaa kale ha kala bakhaylin inaad xasuusiso inshaa arraxmaan uxibukum fillaah alla dartii ayaan kuu jecelahay alla dartii ayaanan kuu xasuusinayaa inshaa arraxmaan waxaan kaa rajaynayaa saan kuu xasuusiyey inaad walaalada kale u xasuusiso xadiidka aan kugu celiyo man asbaxa minkum aaminan fii sirbihi mucaafaa fii jasadihi aw fii badanihi وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا وحذافيرها ninki idin kamid waagu u baryo asoo naftiisa aamin u qaba jirkiisa u badbaado qaba raashinka iyo wuxuu maalinka ku noolaan lahaa ayaa meel u saaran tahay adduunyada ayaa dhan ayaa loo soo kulmiyey walahi salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyo wax allaale wixii ku dhex jirayba walaalkayow nicam ilaahay subxaanahu watacaala ku siiyey weeye qul alxamdu lilahi aladii binicmatihi tatimu asaalixaat wanacuudu billahi min xaali ahli nnaar allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh nicmooyinkiisa ku taamlaya dadka saalixiinta ah waxaana rabbi ka magan gelaynaa min xaali ahli nnaar dadka ahlu naarka axwaashoodan allah subxaanahu watacaala ka magan gelaynaa walaalkayow insha allahu tacaala انشر هذا كليب كان إن شاء الله تعالى أصحاب هذا الأولاد إن شاء الرحمن إلهي وحن كرجينا إنه كويله في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى
aad iyo aad ayaan idin jeclahay walaaladay wiilal iyo gabdho asxaabtayda wiilal iyo gabdho aad baan idin jeclahay allah yaxfadakum ويحبكم ولقاء أخرى إن شاء الله تعالى دمتم في حفظ الرحمن